السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خير شرفت لي soo dhawaada waa injineer abyad waxaan rabaa inaan idinku soo dhaweeyo muuqaalkaana idinku tuso xirfad kaab updateska lagu sameeyey oo aad u ballaaran runtii aadna maaragtay looga soo shaqeeyey waqti badanna la geliyey waxaan rabaa inaan idin tuso marka insha allah inaad bal fahan ka qaadataan especially xagga takhasusiyada waxyaabaha aad baran kartid iyo wixii lamid ah marka qof kasta halkan muuqaalkan daawanaya waxbaa ugu jira oo maaragtay runtii uu ka faa'iidi karo marka koowaad waxaan rabaa website-ka iyo si u shaqeynayo si guud inaan kuu dulmaro haddaa halkan aragtid website-ka haddaad fiiriso xirfadkaab.com haddaa booqatid waxa weeye halkan waa aragtaa koorsooyinkii maaragtay category halkan waxaad aragtaa waxaa kuugu jira diblomooyinkii oo kala duwan ayaa kuugu jira oo la dooran karo waxa weeye halkan marka homekaygaan kusoo noqonaya haddaad marka fiirisid xirfadkaab waxa weeye waa platform wax laga barto waa official platformka sahal global SGI ama Sahal Global Institute oo ah macad bixiya research-yada cilmi baarista iyo maaragtay shahaadooyin diblomooyin ah oo partner la ah jaamacadda Sahal marka intaan markaan ka tagno halkan waad aragtaa above 54 course ayaa ku jirta kan update baa lagu sameeyey hadda marka by time aad muuqaalkan daawanayso waxa laga yaabaa inay ka badan yihiin ama 100 course gaaraan certifications kala duwanna qofku uu qaadanaya waxyaabaha ugu muhiimsanna waxa weeye oo focuska meeshan yaalla waxa weeye dadka qaybtooda waxa laga halka inay ku wareeraan waxa la rabaa si aad ugu wareerin fahankan guud hal mar qaado waxa weeye meeshan focuskeedu waxa weeye qofka in xirfad la baro xirfad wax caadi oo saaka markaa baratid oo bishan labadan bilood saddexdan bilood focuska aad saartid aad dhamaysid wax aad ku shaqaysan kartid ama ku shaqo tagi kartid shaqada raadinteeda iyo farsamo badan ay u baahan tahay iyo tababar lafteeda ka bixin doonaa laakiin yacni xirfad marka qaybta qofka waxaa ku dhacaysa jaamacaddu 4 sano dhammaynaya 12 sano secondary dhammaynaya haddaad dhahdo niyow maxaa ii qaban kartaa maanta wax specific uu qaban kara ma jiro marka qofkii inuusan shaqaba helin waxaa qayb ka ah wax khaasa u yaqaana ma jirto marka innaga halkan waxaan focuska saaraynaa qofku waxa weeye wax khaasa inuu barto tusaale aniga waxaan aqaanaa designka graphic design shaqada haddaa ii dirtid waa kuu dhammayn karaa aniga waxaan garanayaa multimedia waa ku dhamay aniga waxaan garanayaa network waa ku xiran aniga cyber security waan garanaya aniga business baan garanaya aniga accounting baan garanaya aniga halabuur ganacsigaan bartay aniga maamulka aqaanaa projectiga aqaanaa yacni shaqo khaasa waa inaad taqaanid cilmiga guud aqoon laakiin shaqo khaasa oo maanta aad dhihi kartid hebelow shaqada waa kuu qaban karaa ma garat haddaa shaqadii si saxa u baratid ilaa levelkaa aa gaadhid anaa waxaan focus saarayna qofkii in shaqadii la baro xirfadii la baro wixii o dhan la fahansiiyey hadhow markaad meel tagtid waxaa laga yaaba freeba inaad kula shaqaysid waxa weeye markaa shaqadaada marka laga helana wax lagu qoro haddaa meel hore uga shaqaynaysayna dee aqoontaada ayaad kordhin kartaa haddaa artid hadda inaad shaqo cusub doonatid iyo haddaa artid shaqadii hore inaad hormarisid intaba xirfad kaab uu ku anfacaya marka si guud marka waa aragtaa waa skills waxa focuska la saaraya shahaado inaad qaadatid shahaado rasmi ah baan halkan bixinaynaa diblomka kale haddaa adatid shahaado rasmi oo jaamacadeed iyo macadku isa bixinayaan baad qaadanaysaa processka qofka laga rabo marka waxa weye skill inaad dooratid inaad casharadaada iyo waxaad daawatid waxaa jira assessment lagaa rabo imtixaan caadi ah gelaysid imtixaanka inaad geshid shahaadadan inaad qaadatid okay marka taas marka waa taas insha allah marka takhasusiyadu way ballaaran yihiin waxa weeye businesska aadi kartaa managementga aadi kartaa networkga aadi kartaa developmentga aadi kartaa accountingka aadi kartaa programmingka aadi kartaa waxyaaba badan diblomooyinkuna waa ay badan yihiin marka saddex option buu qofku u bartaa sideedaba ugu soo biiri karaa halkan saddexda option waxa weeye inaad dooratid bille ama sanadle tan waxaa loogu talagalay arday raba koorsooyinka kala duwan taragyada kala duwan inuu iska dhigto laakiin dibloma ah diblomada process gaar ah haddaan ku tusaaya ardaygii raba inuu koorsooyinka meesha ku jira si structure u barto ka faa'iidaysto isdhiso aqoontiisa dhiso xirfadiisa dhiso hadba category bilaabo laba option ugu soo biiri karaa inaad bille bixisid oo 15 ah inaad sanadla bixisid oo 9 ardada sanadlaha ah ayaa ardaygii raba inuu commitment inuu wax intuu bilaabay si saxa u dhameeyo 9kaas ayaa u fiican sanadlaha laakiin ardayga xoogaa xagga jeebka ka cararaya waxa weeye billaha ayuu dooran karaa still koorsooyinka iyaga kuma qasbanid keliya bilihii sanadle inaad dooratid bilihii sanadle markaad dooratid hal koorsa keliya ma koorsooyinka oo dhan baa kuu furan wax allaale wax xirtaa baran kartaa faa'iidadaasay leeyihiin waxa weeye laakiin waxaa jira sidoo kale singleka waxa loogu talagalay arday aan rabin inuu waxyaabahan iyo janisba uma hayo keliya wuxuu rabaa hal koorsoo meesha ku jirta inuu barto soo kaasna ardaygaas wuxuu dhiganayaa sanad koorsaas ayuu gadanayaa hal mar oo one time buu gadanayaa marka basically su-aalaheeda iyo waxyaabaha u baahanta o dhan waa kan websitekeena lambarkeena waa kan furashan macnaa 735383
halka haddaa ku dhufatid automatically horaa nagala soo hadlaysaaba butoonka yarka haddaa taabatid. So intaa marka waa waxa guud programyada guud. Haddaan dul istaagna marka diplomas ku dhufano diblomooyinka meesha kugu jira waad baran kartid. Okay, qodobka ugu muhiimsan waa kan marka diblomooyinka. Kan waxaa loogu talagalay qof raba shahaado rasmi ah inuu qaato. shahaado rasmi ah oo jaamacadda iyo kolleejka isla bixinayaan inaad qaadatid haddaad rabtid diblomooyinkan ayaad aadaysaa. marka diblomada waa maxay? skillkiina waa baranaysaa, wixiina waa baranaysaa, shahaado rasmi ana waa qaadanaysaa, imtixaan rasmi ana waa gelaysaa. marka ma ahan un waxbarasho iska on demand keliya ma waxbarasho rasmi ah tan. Alright, marka diblomooyinka hadda meesha ku jira waxa weeye network and cyber security waxaa lagu bartaa amniga iyo computerka iyo systemyada sida lasoo xiriirshay amnigooda. Software and web developmentiga waxaa lagu bartaa softwarada sida loo sameeyo iyo websiteyada iyo wixii la mida. Computer systems and IT support. IT supportiga waxaa lagu bartaa waa shaqada ugu badan boqolkiiba 99 ama boqolkiiba macnaha aan dhahno adiga lambarka ugu badan IT support waaye shaqooyinka asaasiga ah ina ay meel tagi kartid, ciladaha u xallin kartid, basic oo dhan xallin kartid. marka computer systems and IT support ma anfacayso keliya qof IT raba inuu barto. qof kasta oo adduunka ku nool waxa weeye waa waajib inuu barto computer systems and IT support. waa qof kasta oo raba shaqo xafiis inuu ka shaqeeyo, shaqo caafimaad, shaqo wasaarad, shaqo dowladeed, shaqo kasta. sababta ah shaqo kasta maanta waxaa la dhigaa xamaali marka laga tago shaqooyinka kasta oo la qabanayo qofku waa inuu computer ku shaqeeyo soo ma. marka si darteed computer systems and IT support diblomadan qof kasta baa bilaabi kara, waana qof kasta. marka qofkii IT raba inuu bilaabana isaga waa meesha uu ka bilaabi lahaa. qofkii IT aan rabinna tanuu baranaya halkaas kaga haraya, IT-gan kale isagu muhiim uma aha. soo ma fahmin marka saas wey. laakiin labadan waa takhasus. tan marka hore diplomkan marka hore soo dhigo computer systems IT support, hadhow ama network aad ama software development aad. saas weeye labada takhasus baa hadhow la kala aadaa haddaa IT tahay. adoo jaamacadaada dhiganaya, adoo maaragtay waxaada dhiganaya, adoo maaragtay macadkaada dhiganaya ayaad kuwana dhiganaysaa. waxaa haray marka diblomooyinka kale. business entrepreneurship diploma waxaa loogu talagalay arday kasta oo doonaya inuu noqdo hal abuure, inuu asagu shaqaysto. maanta o dhan shaqaale ma raadin kartid. marka qaybtood waxay u baahan tahay adiga laftirkaada hal abuur inaad noqotid. hadda aniga marka hal abuur ka shaqaynaya as engineer abyad ahaan waxa weeye marka hore waxa laga yaabaa ani nafsadayda haddaan shaqo u raadsan jiray waagi hore shaqada si loo raadsiyo waxa keliga inaan shaqo helo. laakiin marka hal abuur ka shaqaynaya institutionkii aan maamulay waxa laga yaabaa 20 30 40 maanta ilaa maxaa la yidhahdaa 80 qof ayaa institutionadii aan hal abuurkooda qayb ka noqday ama maamulkooda ku jira ama boardkooda ku jira ama qayb ka ilaa 80 qof oo u shaqaysa. ilaa 80 qof marka maanta alxamdulillah aanu shaqaalaysiin. marka bal fahan 80 qof inaan shaqaalaysiiyo iyo keligay iyo awood badan. waxa weeye markaa 80ka qof ayaa awood badan waayo waddankiina waxbaan kusoo celiyey. marka saasaan u shaqaynaynaa. marka adiguna laftirkaadu business waad bilaabi kartaayo haddii techniqueskii loo baahnaa aan ku siino dee business waad bilaabi kartaa. so business entrepreneurship diploma taana waa taa. research methodology-ga qofka waxaa lagu bartaa sida research loo qoro. arday kasta waad ogtahay markaa qalinjabinta dadka waxba iska qorqoraan lama rabo wax iska qorqorto. qof jaamacad soo dhameeyey oon maanta cilmi baara ahayn waxa weeye jaamacaddiis waxba kama jiraan. waa inaad cilmi baaris taqaanid sida cilmi baaris loo sameeyo. marka tan laba shay baa ku anfacaysaa ardayga jaamacadda markuu dhiganaya waa anfacaysaa sidii buug u qori lahaa, siduu u dhammayn lahaa, siduu u difaacan lahaa. haddaa xitaa jaamacaddii dhammaysayna weli way ku anfacaysaayo inaad cilmi baaristii si saxa u baratid oo markaan adoon buug keliya inaad ku baasi keliya aadan u baranayn. English proficiency diploma tan waa diblomada caadiga ahayd oo Englishka weeye. English literature-kii ayaad dhiganaysaa insha Allah haddii ilaha yiraahdo. waxa weeye financial operations and accounting waxaa loogu talagalay qofka xisaabaadka yaqaan ayaa loogu talagalay ama xisaabaadka raba inuu barto ayaa loogu talagalay iyo hawsheeda insha Allah haddii ilaha yiraahdo oo accounting and financial accounting kii weeye. project management diploma waxaa loogu talagalay qofka raba inuu maamulo mashaariic ayaa loogu talagalay. mashaariic dowlad, mashaariic hay'ad, mashaariic barayfada intaba public private sector. logistics supply chain and e-commerce diploma tan waxaa loogu talagalay logistics waa shaqo aad u weyn maaragtay si laakiin u fahmi kartid Soomaali ahaan waxay noqon kartaa alaab procurement-gii, alaab soo gadashadii, alaab diristii, asset maamulistoodii, alaab maaragtay waxaas oo dhan la kala hagaajinayo, kaydkii shirkadda, institutionka waa aad ba u ballaaran tahay. shirkadaha qaybtood 10 qof, 20 qof, 30 qof baa ka shaqaysa. dee logistics-kuna iyo supply chain-kuna iyo e-commerce-ga marka lagu daro online-kiina leh waxa weeye waa suuq aad u weyn oo malaayiin qof buu shaqaalaysiiyaa. ma fahantay? Soomaaliya marka laga hadlayo logistics-kana dee waa sektarada ugu waaweyn oo shaqada lagu helo weeye. qofka xitaa isaa mid abuuran kara. marka diblomooyinkeenu saasay yihiin. very specifically marka shortly waxaan samayn karaa inaan ku dhufto oo kale. marka waxaan samayn karaa tan oo kale hadda view baan dhihi karaa. tusaalahaan marka network and cyber security markaa ku dhufatid waxaa arkaysaa description-kii faahfaahintii cidda isla bixinaysa. waxaa arkaysaa koorsooyin ku jira.
saana u bilaabaysaa koorsooyinkan marka tan waa tusaale laakiin kuwa kalena waa isku qaabkaas un koorsada midaan ma bilaabi karti adoon tan dhamayn tanaa dhamayne tanaa ku xijine tanaa ku xijine mid kasta waxay leedahay chapter kasta wuxuu leeyahay imtixaano chapter marka ugu dambeysana final exam baa gelaysaa koorsa kasta tanaa ku xijine tanaa markaas ma diblomada helaysa payment planku waa isku mid dhammaan diblomooyinka dhan waa isku mid qaabka waxa weeye haddaa hal mar bixinayso waa 150 laba haaf haddaa u kala bixinaysa 7575 wey haddaa one time haddaa saddex haaf u kala bixinaysidna waa $50 marka qofka waxa laga raata ugu yar oo dooran karti waa $50 waxa weeye laba haaf haddaa u kala bixinaysa waa san haddaa u kala bixinaysidna waa sidan sababta koorsooyin qofka waxa laga yaabaa inuu dhaho ustaadii waxaan maxay ama qaali miyaa ama wax la mid inuu dhaho horta qaali ma aha xaqiiqdii marka laga hadlo diblom dhammaystiran oo complete oo 150 ku baranaysid runtii lacag ma laakiin sababta sidan u tahay waxa weeye annaga waxaan rabnaa qofka in si sax wax u barno hadda $2 kaa qaado waqtina ku heli maayo kumana shaqayn karo macallin kale oo $2 kugu shaqaynayana lama helayo runta laga hadla waxa weeye waayo macallinka koorsadii $100 buu ku qaataa minimum la rabo inuu kuu shaqeeyo oo waqti geliyo inuu maaragtay kuu soo galo oo wax walba kuu xaliyo marka aad ba caqliyan waa garan kartaa haddaa wax barasho rasmi ah rabtid waxaa u baahan tahay wax rasmi ah inaad bixisid si wax rasmi ah lagu baro oo aad ku xisaabtami kartid marka quality-gii saan u helna waa taa qodobka labaadna waxa weeye diblomadan jaamacaddii iyo college-ka isla bixinayay soo diblooma la aqoonsan yahay baa helaysaa labadaa qodob baa meesha ku jira marka oo muhiimka ah marka labadaa qodob baa runtii keenaya marka qaab structure loo bartaa waa on demand support baa helaysaa ardayda diplomka hela support direct ah bay helayaan ardada kale supportiga ma haystaan live kala sida joogtada ah laakiin ardada diplomka ah waxaa loo ogol yahay si supported toosa ardada kale laakiin waxay haystaan chance ah inay bartaan waxaa jira marka intaan markaan ka tagno tan hadda waa mid un aan furay soo maaha kuwa kalena saasa u furi karnaa waxaa lagu baranaya tusaale ahaan computer systemskii soo maartid tan ku dhahaya qof kastoo ka bilaabaya IT essential baa ka bilaabaysaa windows baa ku xijinaysaa microsoft officekii kamtiyadii virtualization saasa u soconaysa waxa weeye marka saasaad u baranaysaa entrepreneurship diplomadii soo maartid iyadana same sidii baad u baranaysaa time managementigii sidan waa kuwan maxaa kuugu xiga researchkii weli wuu socdaa laakiin waa kuwan saas u soconaysaa processku waa isku mid englishka same project management same waxa weeye marka conceptigu waxa weeye waxaa rajaynayaa aad fahantay baan rajaynaya financial accountingkii same trashin ka qaado quickbooks ka qaado desktop online ka qaado excel ka qaado inja-ooyada sida looga shaqeeyo qaado saas isugu xigtaa soo maaratid wixii way soo kaa fadhiyaan waxaan annaka problemkii maanta o dhan meesha hadba koorso dhigan lahayd ba koorso meel gaara hadba koorso waxa waxba kuma tarayso waxbarasho structure isugu kaa xigta lagu imtixaamayo lagu dabagelayo shahaado rasmi anaa qaadanaysa marka diblomooyinku waa qaybta aan isleeyahay qof kasta waxa weeye waxbuu ku noqon karaa uu ku baran karaa qaybta xigta waxa weeye waa certifications oo SGI certifications baa ku qoran haddaa aragtid waxa weeye waxaa tan loogu talagalay arday aan diblomna rabin inuu qaato koorsaan rabin inuu qaato marka waa meel dhexe tan waa qof raba shahaado imtixaan international inuu galo waxaan haynaa certified human resource professional waxaan haynaa BMB certificationska waxaan haynaa CAMTIA security plus physical security professional researchkii marka kuwaan waxa weeye waxa loogu talagalay waa certificationskii categoriga caadiga ah koorsooyinka iska caadiga ahana ma aha kuwii kalena ma aha marka meel dhexe wey marka intaa markii laga tago qofku si isu diiwaan gelin karaa haddaa is diiwaan gelinaysa processku marka waa very simple waxaan samaysanaynaa kanaan koobiyeysanayna waxaan ku tusayaa marka maadaama kan aan horey kuga jiray halkan ayaan soo furanaynaa waxa weeye marka start lane unbaad ku dhufanaysaa haddaa rabto inaad is diiwaan gelis halkan imow magacaada saddexna halkan ku qor halkan magacaada saddexan ku qor ma fahanta warfaa cali maxamed halkaa taleefankaada ku qorqor halkaa magaalada joogtid ku qor halka emailkaada ku qor kan waa very important emailka waa shayga ugu horeeya oo laga rabo maaragtay inaad qortid halkan coursigii hadda marka 3 option baa ugu soo biiri kartaa 3 option baa xifkaab ugu soo biiri kartaa inaad courso rabtid inaad diploma rabtid inaad certification rabtid saddexdaa marka ka rabtid dooro marka horeba si lagu garto marka course sidaa rabtid hadda course waxa weeye waa koorsooyinka badnaa kala duwanaa qofkii raba un marka halkan ka dooro koorsooyinka aad dareynaysid dhag categoriyada aad dareynaysid dooro ma fahanta haddaa diploma rabtid laakiin diploma ku dhufo halka diplomada aad rabtid ka dooro hal diploma dooro badanaa hadhow mid kalena waa dhigan kartaa dhibaato male laakiin midda markaa artid inaad ku bilowdid macnaha bilow halkan waxaad dooranaysaa highest educationkaada aad soo gaadhay halkan waxaad dooranaysaa age rangegaada macnaha da'da rasmiga maaha inta u dhaxayso 18 u dhaxaysa 26 18 ka yarta dooro halkan waxa weeye password samayso password halkaas samayso
halkan I agreed marka passwordka halkaa ku samaysatay iyo emailka halkaa aa gashatay ayaa wuxuu noqon doonaa maxaa la yidhaahdaa wixii aad ku geli lahayd kadibna create account baa dhahaysa by time create account aa dhahdid waxaad awood u leedahay inaad accountkaadii hadhow automatically assign in ku dhahdid meeshaadii marka hadda my dashboard markaan ku dhufto automatically halkan ayaad gelaysaa soo maartid halkaan uu geynaya meesha casharada ka dhigan lahayd waa halkan ardada dibloomooyinka halkaana si gaara wax uga sii baran doonaan laakiin courses baan ku dhufanaynaa marka hore oo meesha mainka so courseska halkan waxaa weeye my courses waa koorsooyinka adiga activeka ku ah all coursesna waa koorsooyinka o dhan marka userkan waa iska tijaaba laakiin koorsadii markaa adiga kuu furnayd oo kale ayaa halkan ka helaysaa ee adigu aad dhigan lahayd oo kale kasoo qaad koorsadaad dhigan lahayd tan oo kale wey halkaasoo kale kaaga soo baxaysaa continue learning baad leedahay waxa weeye halkaasay kaaga soo baxaysaa koorsadaadii oo casharadeedii casharkii marka belay baad dhihi kartaa very easy kan ku xiga tegi kartaa kan ku xiga tegi kartaa waxa weeye chapterkan isagoo dhan waa iska soo xiri karta chapter Soomaali saa furan moogta waa xiri kartaa haddana chapterka labaad waa xiraysaa casharkiisa markaa dhamayso mark as complete question haddaa rabta halkaas soo dhig waxaan rabaa marka inaan ku tuso qaybta maaragtay ay ku qoran tahay community dashboardka markaan ku dhufano communityga waxaa halkan soo dhigi kartaa su-aal weydiin marka halkan discussions markaa ku dhufatid discussionka aad rabtid baa ku dhufan topiga guud aad rabtid baa ku dhufan kartaa kadibna halkan waxaa ka arki kartaa su-aalihii topigaas la iska soo weydiiyey hadday jiraan halkaasa ka arki kartaa halkan sidoo kale ask a question adi laftirkaada su-aala soo dhigi kartaa adi laftirkaada su-aala soo dhigi kartaayo ask a question baa dhigi kartaayo waxaad oran kartaa topiga guud uu ku dhacayo iyo su-aashii titlekeedii sharaxaadeedii boostidhe ma fahante halkaana sidoo kale waxaa ka arki kartaa challenges hadday jiraan wixii challengeyada halkaana ka arkaysaa halkaana waa wax lagu tartamayo live sessionna soo socda hadday jiraan halkaasa ka arkaysaa soo maarata halkaasoo kale soo socda leadershipkana waxaa ka arkaysaa tartanka ardada si u kala sarreeyaan ileen bil walba tartan baa jiraya so last 8 days last 7 days soo maartid all time soo maartid halkaas ayaad ka arki kartaa intaan halkaa maraan oga tagno diploma baa jira diplomiski halkaa marka kuwa ku diiwaan gashan halkaas kaaga soo bixi doonaan haddaad diploma u diiwaan gashan tahay labis baa jiri doona oo diplomooyinku ay leeyihiin labiskoodii oo la samayn doono lagu practice garayn doono so basically sidaasaa casharada loo dhiganaya processkuna saas u jiraa homekaadaad ku dhufan kartaa koorsadii hore waa ka koorsadii ugu dambeysa kor kugu socotay kor bay kuusoo fuulaysaa days macnaha haddii halkaana balankaada ka arki kartaa alright balankaada ka arki kartaa marka qofka wax ma soo codsan karaa balan ma soo codsan karaa yes waa soo codsan kartaa diploma ma soo codsan kartaa hadda waxaan ku dhufan karnaa homeka caadigaan tegi karnaa halkaan iska tir saan dheh waxa weeye marka homeka caadiga tusaale ahaan diploma soo codsan kartaa haddaad diploma codsanaysa haddaad koorse codsanaysa processku waa isku mid fiyo dheh kasoo qaad tanaa soo codsatay kasoo qaad waxaad tiri kanaa tiri kadibna hadda dalbaad tiri saan markaa u dalbatay halkan waxaa kuusoo baxaysa wuxuu ahaa balankaadu hadday koorsa tahay hadday wax kala tahay halkaana waxaa kuusoo muuqanaysa paymentigii inaad bixisid ayaa kuusoo baxaysa akoomadii aad lacagaha kusoo diri lahayd kadibna waxa weeye halkaas sender phonekii telefonkii soo diraha halkaan referencega soo gelaysa mid baa dhahaysa automatically halkan waa ka arkaynaa whatsappkana message baa noogu soo qoraysaa magacaada saddexan emailkaada iyo inaad lacag soo dirtay la isii daayo qoraal yar aad ku qoraysid alright marka basically sidaasay u diyaarsanta waxaan rabaa marka inaan balaanka caadigana ku tuso balaanka caadigana same weeye kasoo qaada hadda ama bille caadiga koorsooyin bas baartaa inaad dhigatid ma bille ma sanad leh so biloo kale subscribe monthly waa dhigi kartaa okay so waxa weeye monthligii ayaynu dooran karnaa oo aan ku dhufsan karnaayo dooran karnaa ma garat marka kasoo qaad hadda koorsaan ku dhuftay tan oo kale aan ku dhuftay okay go to course baan dhahnay marka choose plan to unlock balankeena muxuu yahay balankeena waa ka dhadhadhadha so marka monthly baan doortay marka iyadana same waa kaas very easy waxaa jirta halkan oo kale waxaa soo baxda badanaa oo hadda activekii malaha waxaa filaya wax yaro updateka systemka inuu yahay paypalka oo kale automatic ugu xiriirsan yahay halkaas kuusoo baxaya paypal baa dhag siinaysaa marka paypalka si automatica ayaa lacagtu kaaga jaranaysa haddaa bangi leedahay bangiyada soomaaliya oo dhan visa card way leeyahay lacagtaada visa cardkaada dhigo halkaas kaasoo jaramaya lacagta automatic haddii kalena maxaa la yidhahdaa qaabkan usoo diraysa e-visa haddaad soo diraysid lambar akoonkeena waa kan 770 kadibna hashaas u raacinaysa saad haddaa kasoo diraysid qaabka uga soo diraysid idaab haddaa kasoo diraysid qaabka uga soo diraysid akoonkeeni marka qaababka kala duwan ayaad usoo kala diri doontaa insha allah then that's it macnaha referencega geli submit de automatically halkaa ka arkaynaa
adigana halkaas fariinta noogu soo reebaysaa. Waxaan rajeynayaa inaad si fiican u isfahantay qaabka uu shaqaynayo xirfad kaab, qaabka uga faa'iidaysan kartid diblomooyinka, certificationska, courseska. waxaan kugu soo dhaweynayaa mar labaad mar saddexaad xirfad kaab meel walba aad joogtid. insha allah waxaan rajeyn doonaa inaad ka faa'iidi doontid online classyada isku arki doono insha allah. Assalaamu calaykum.